sodhawa saaxiibayaal ciyaaraha maanta maxaa cusub aan fiirin doonaa kulamada la ciyaari doono xalay maxaa la geeri kulankii Chelsea dhaleecin loo jeediyay tababaraha Chelsea iyo sheekooyin kale sheekooyinkan waxaan ku bilaabi doonaa marka hore saaxiibayaal soo dhawaada bartan YouTube-ka subscribe inoo saar si ay nagu noqoto dhiirigelin weeryahanka Arsenal Yokeres ayaa ka hadlay sida uu la tacaalay dhaleecinta xilligan loo soo jeedinayo isagoo sheegay in diiradda la saaro waxqabadka shakhsiga ay tahay fursadaha lagu guuleysto markii la joognaaday sida Arsenal oo kale وأنا سمعت توقع وقارة والله قبصته ماشي أتكو عياريسو وإلى نفط هذا آمنتو أسعته وحيد عيها دعاني ها تقولها جرونك أما برناك يوغريس وريانك سويدشكا هي قرتين على ذلك بريمير ليج وأدوين حي ونه كدوين هكوا كله مركان جوك برتغال سدو كل واحد جري حساب بدن بل صار كان إجلر وميد أدوين وحلبه يلا فرنقيا لكن تا وحدي بهو ماركو يوغريس يعرف كويد كي مهمة إلى ده النفيري وحيابها الحكمين كرو maaha mudnaanteedii kuwaad inaan aqriyo wax walba oo dadku qoraan waxaan ka fikirayaa waxyaabaha aan anigu xakameyn karo tababar joogto ah ciyaarista kulamada diyaarinta jirka kulanka dabcan mararka qaar waa inaad maskax ahaan u tustaa Yokeres iyo ilaa haatan 3 gool dhaliyay Arsenal isagoo ku jira bilow adag oo xilaareedkiisii Premier League ah marka xidig wuxuu leeyahay waxyaabaha la soo qoro anigu ma aqriyo laakiin muhiimadda ayaan saari doonaa inaan wax qabad shakhsi ah sameeyo dhinaca kale weerar ayaa lagu qaaday ama si xun ayaa waqtigan loo garayaa tababaraha Chelsea ninka lagu magacaabo Enzo Maresca dhaleecin ayuu la kulmay kadib guuldaradii ka soo gaartay United-ka xiriirka Ingiriiska Alan Shearer ayaa shaki galiyay horumarka Chelsea inkastoo naadigu maalgelin waali uu sameeyay suuqa ma weyn Chelsea ka fiican yihiin sidii ahaayeen 3 ama 4 sano kahor inkastoo la sameeyay maalgashi badan su'aalo badan ayaa weli jawaab u baahan ayuu Shearer ku sheegay waraysi uu bixiyay kadib guuldaradii Chelsea ka soo gaartay United-ka kulankaas oo ka dhacay Old Trafford Chelsea ayaa la kulantay dhibaato degdeg ah markii Robert Sanchez loo taagay kaarka cas taa ku qasabtay kooxdu in la kala dhantaalo guuldarana ay ku dhacdo Shearer ayaa tilmaamay in qarashka badan ciyaartooyda cusub aysan weli ka turjumin horumar muuqda isagoo taageerayaasha qubarada kale u raacan Chelsea oo baahan tahay qorshe cad oo mustaqbalka fog ah qaladaadku xal macalinka sameeyaha ayeen wax aan wanaagsaneyn ayaa la yiri dhinaca kale ninka lagu magacaabo Bruno Fernandes hogaamiyaha Manchester United ayaa san ka hadlay guushii ka gaareen Chelsea kabtanka wuxuu yiri dhibcaha saddexda ah markasta waa muhiim waxaan u ciyaarnay siyaasada sano muujino kulanka xiga sida darteed ciyaarta soo socota iyaduna waa muhiim isagoo ka hadlay gaaristiisa 100 gool uu dhaliyay United Fernandes wuxuu raaciyay gool walba waa muhiim waqtigan dhaliyaba inaan gaaro guushan anigoo ciyaaraya naadi sharaf leh waa waqti muhiim ah taa ma qarinayo haddii aad dhalin karo golal kale si aan kooxdu u caabiyo waa arin aan ku dadaali doono kaarka Caza Casemiro waxaan ku jirnaa horumar kadib markii goolahooda ciyaarta laga saaray waxaan si arsara u difaacnay goolashii aan la horumarnay xitaa markan hal gool ayaan qasaarinay Gundogan waxaan helay natiijadii aan rajeynayna yiri ninka lagu magacaabo Bruno Fernandes oo rikoor kala duwan dhigay kadib guushii Manchester United ee ka gaartay kooxda Chelsea halka macalinka Chelsea Enzo Maresca isna uu daha ka qaaday qorshihiisa ahaa in qaybta labaad ciyaarta garoonka soo gali Garnacho balse xaaladdu lama filaanku ay bedeshay qorshaha Garnacho wuxuu diyaar u ahaa inuu soo galo balse Fofana ayaa codsaday in la bedelo maadaama uu daalay kadib muddo dheer dhaawac ka soo laabtay marka waxaan go'aansan inaan keeno Malo Gusto halkii Garnacho siin lahaa daqiiqado ciyaar qorshihii hore wuxuu ahaa in Garnacho fursad siiyo yiri macalinka taa oo ka hadlay sababta uu fariisay Garnacho ama uusan u soo galin ciyaarta Garnacho oo ka baxay akademiyada Manchester ayaa sagay fursadii ugu horeysay ku wajiilay kooxdiisii hore tan markii uu ka tagay Old Trafford taageerayaasha ayaana qayliyaab lagaada soo ku dara xidigan oo kursi ka daawanayay kooxdiisa guuldaro soo gaarayso waliba kala kulmaysa kooxdii ka soo dhaqaaqay maanta yaa ciyaari doona oo sheekooyin kale oo xiiso badan saaxiibayaal The Gunners Arsenal ayaa wajihi doonta kooxda Manchester City waa kulan kale oo indhaha lagu hayn doono maqribkan la ciyaari doono Arsenal ayaa daneynaysa in ay guul gaarto iyadoo dhibaato badan ay kooxdan ka haysay sanadihii ugu dambeeyay marka la eego Arsenal iyo Manchester City 12 kulan waxay badisay Man City oo kulamadii ugu dambeeyay 9 baraje galay 12 Arsenal ayaa adkaatay kulankii ugu dambeeyay 5 gool ayaa looga adkaaday City ciyaar dhacday February 2 halka kulankii ka horeeyay 2 gool ay ku dhameysteen baraje ayaa u sii horeysay Arsenal guul ka sii horeysay afar goolna Arsenal ayaa looga adkaaday April 2023 labada kooxood bandhig wanaagsan ay ku jiraan sanadkan inkastoo Arsenal ee kaalin 3 fadhisa halka City booska 12aad Arsenal ay guuleysay 3 kulan City ay guuleysay 2 kulan kulamada horyaalka ciyaareen City 2 jeer laga adkaaday halka Arsenal 1 jeer laga adkaaday sheekooyinkan ayaa ugu weyn saaxiibayaal kulamadaas ayaa ku xiiso badan war kulan ku adag la daawan doono Barcelona oo Kitavi la ciyaari doonta
Milan iyo Roma ama Lazio AS Roma ay balansiin Inter iyo Sassuolo ciyaari doonaan. Borussia Dortmund iyo Wolfsburg iyaguna ay balansiin kulamadan ugu xiiso badan. Subscribe na saar bartan ma sanadin